السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaad kusoo dhawaataan youtube channelkani Keenan Code aad uga barateen allaaba inaan idinka soo gudbino muuqaalada quseeya computer science-ka. Videogan kooban waxaanu ku eegi doonaa faa'iidada uu leeyahay website-kaasoo kaa saacidi doona inaad qaab cajiib aad u qorato ama articleska iyo mawaadiicda aad doonayso inaad wax ka ogaato. Tusaale ahaan waddan taariikhdiisa markaad doonayso inaad ogaato oo kale meeshii aad qoraalku intuu ku soo baxo aad koobiyeysan lahayd ama aad save garaysan lahayd ama aad sawir ka qaadan lahayd si aad doonto u isticmaalo. Kan wuxuu ku sameynayaa qaab aad adiga loogaga baahan yahay inaad dhaqdhaqaaq samayso aad keyboardka ka qorayso. Suu shaqeynayna waan wada arki doonaa. Website-ka magaciisa isaga waxaa la yiraahdaa essay type baa la yiraahdaa ama essay typer. qaabka markaad u qorto website-ka magaciisa sida aad aragtaan linkii ugu horeeya ayaan ka geli doonaa marka browser-kaaga aad ku qorto essaytyper.com. markaad click siiso wuxuu ku soo saari doonaa daaqad noocan ay ku qoran tahay. Sida dadka waxa la sameynayaa kaliya mawduuca aad doonaysid inaad raadiso ama wax ka article-ka rabtid inaad wax ka ogaato ayaad barta gelin doontaa. Tusaale ahaan haddaad doonaysid inaad qoraal ahaan aad u hesho xog ku saabsan wax la yiraahdo Soomaaliya oo kale halkan ayaad waxaad gelin doontaa waddanka Soomaaliya oo qoraal ayaad gelin doontaa. Kadib keyboard-kaaga ayaad taaban doontaa enter. waxaad aragtaa inuu ku soo saaray warqad maran laakiin uu mawduucina soo siiyay the modern Somalia normative critique. Soo darteed waxaad sameynaysaa kaliya keyboard-kaaga waxaad sameynaysaa aduun baa garaacaya gacmaha ka garaacaya qoraalkuna uu ku qormayaa automatically. Sidaa darteed bal aan yara eegno anu hadda wax xarf ah oo aan qorayo dheeri ma jira laakiin bal isku yara qiimeeya. waad aragtaan kaliya waxaad sameynaysaa article-kii mawduucii casharka aad doonaysay qoraalkii aad rabtay bartan ayay ku qormayaan. Somalia officially the Federal Republic of Somalia is a country in Horn of Africa. The country is bordered by Ethiopia to the west, Djibouti to the northwest, the Gulf of Aden to the north. So kaliya keyboard-kaaga ayaad qoraysaa. wax kale ma sameynaysid. adunba keyboard-kaaga iska garaacaya hal xaraf xitaa haddaad garaacdid qoraalku waa mid ku soconaya. bal aynu ku tijaabino in uu soo qabto qoraal hadda Soomaaliya ka duwan baynu gelin doonaa insha Allah. essay typer linkiga sidii marka hore aan sheegnay waxay iska midila ugu horeeyaad ku dhufan doontaa meeshii mawduuca aynu qoraynay aanu ka raadinaynay Soomaaliya kale waxaanu qori karnaa tusaale ahaan TikTok dadku ku waasheen ma gelinaa TikTok ayaynu gelin doonaa. bal TikTok markaad geliso aad mar walba qoraalka waxaad gelin doontaa inta yar ee dhexe loogu talagalay enter ayaad dhahaysaa. kadib keyboard-ka waa aragtaan qaybtan inay boodboodayso doonayso in qoraal la geliyo qoraalkii ku saar lahaa waa keyboard-kaaga adigu isla ciyaara. bal intaan dhaafin TikTok-ta muxuu ku sheegay. okay TikTok known in China as Douyin. China waxa lagu yaqaanaa weli TikTok-ta Douyin marka hore uma maqlaano is a video-focused social networking services owned by Chinese company ByteDance Ltd. marka waa shirkad Chinese askari baa la yiraahdaa ByteDance Ltd. intan hore uma ogeyn laakiin kaliya waxay ahayd muhiimadda muuqaalkan ugu talagalay inaynu aragno website-ka la yiraahdo essay typer qaabka uu shaqeeyo. muhiimadiisuna intaa un bay ahayd videogan ugu talagalay. muuqaalkan haddaad ka heshay like saar la wadaag asxaabtaada. muuqaalka intaan ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.